السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلام دمان أخيار تشرفت له صاحب قاليقة رير دبيب رير ددال ساليها ملفي عينيها مالا نباد قبا إلهي إذن كيسا وإذي رجينا مانتي مالين والبابا ملك الدنك جوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا غير إيه فرحالي سو دواذا ما شاء الله وما مواني إيه مركلة وبرنامج كيني دودو جنتا إيه دير قلنتا تيم حسابتن soo dhawaada welcome soo roora weligiina xisaabtama gambaradiina soo jiijiita welcome aad leeyahay amuurta khayr Allah ka dhigo Allah nooga dhigo dhamaan yaa way dadka xisaabtama horto maxaase lagu xisaabtama waayaha waxaa iska daba wadnay da ku xisaabtama daryeelka naftaadana ku xisaabtama ilaahay u mahadi ilaahay u shukri isbedelkaaga waxaan u fiirso isbedelkaaga jucjuucaan u fiirso naftirkiisa si loo xaliyo ilaahay idankiisa xalaalaha keenay cudur oo dhan Soomaali waxay tiraahdaa iliya dhag ilaahay isma kaaya tuso haddii amarka ilaahay aan xanuun la soo dhuldhacnana ama aan wax dareenana waa in loo kaco xag la fadhiyaan xoolo kuma yimaadaan gabdhuhu waxay wataan listi dheer tin ilaa ay xirib bolbol ha la isku xisaabiyaa la dhahay soo xaadira waxaan idiin dhahaana wax kala maaha ishas dhageyso hadalku ha ku dhaco dantaada adaa garanaayo ilaahay ka sakow cid kaaga dhow ma leh isbedelada adiga lee og ilaahay ka sakow tuguudiyo tugaarba micnaha loo dadaalayana wax kala maaha inayna sii durgin waayo cidna qasab kuguma laha dhagtaa intaa ka maqashada kale ka sii deyn kartaa laakiin aan meesha taalo inaa xisaabtantaa waa adiga arrin aad u xil saarantahay ilaahay idankiisa maxaa soo kordhay marka gabdhaha markii waagii jawjaw la wada ahaa oo gabar walba ay bii kala bambiina garbafiina ahayd way jecleed laakiin qaarkood ma ogo jirkan jawjawda ah waxbaa u imaanayo cirada socota ha dhihin tima qafiifka ha dhihin kordaalka ama jirkan da'du soo dharbaaxda ha dhihin xanuunkiyo culayskaba ha dhihin caajiskii dawaqaada ha dhihin cillado badan un dhakhtarka xataa loola tegin baaqad ka soo galaya ha noqoto sida jirkaaga u shaqeeyo ha noqoto hurdadaada xataa ilaa iyo farxadda markaa maqla kelmadda dib baa loo noqonayaa ama dadku ay maqlaan inta badan waxaa loo malayn jiray ama aanba u malayn aniguba kow kelmadaas markaa maqlay igu cusbeed dadka qurbaha jooga Soomaaliya ay lama horaan u tahay waa codka jilaal oo loo noqonayo waxay noqon kartaa dib baa loo ilmoobayaa wayna dhacdaa xibnihii tabarta adduunka ku daashoonaya dhigdhe aan maantoo dhan badaalaynin ayagaas waxaa arkaysaa iska daba wado qaarkeen waa bilownay markaan dhulka wax ka laacayno kale inaan eedaarno ama kelmado shanqara naga soo baxdo oo aan cido u baahnayn marka taas waxay tahay inuu jirku daalan yahay mararka qaarkood jirku ma daalano mana xanuunsano ishas waaba qabatinaybo ayaantaan caajisnayna markaan qaanadaha hoos wax kala soo baxayno ama aan dhulka wax un ka qaadayno qatiifad ha noqoto wax ku dhacay ha noqoto waxbaa naga dhex yeerayo mararka qaar waaba shanqar lafaha ka yeerayso mararka qaar waa lagu kaftamaa da'da qaar marka la gaaro nabadaa ku seexatay sariirta ka degbaaba isleedahay sibaad bu u shanqaraysaaba ama adiga oo tacbaanaaba is arkaysaa marka waxyaabaa soo kordho waxaa ka mid ah lug xanuun lugtii shalay fiicneed ood ku shaqo tagtay ama ku magaalo maraysay maanta waabad jiidi wax ku dhacay lama yaqaano gabdhahoo kale hadday is xisaabiyaan qaarkood xididada lugahay leeyihiin ferikos fenkia kugu kacay marka maanta waxay noqotay in lugta la jiido bararaa jiro oo lugaha qaarkood marmar ama labadaba bararaan ama mid keligeed ee bararto ciladaas meelay ka socoto lama yaqaan laakiin jirkii hela filter iyo nadiifin iyo masaaj iyo kulkululeyn iyo wadwad inta badan arrinkaa ma arko kole nafaqo loogu darana oo afka nin walba wuxuu cuno ciidamiyay
mashiinka la siiyo batroolkiisa, haddii kale lafaha iska xoqaaya, cillado badanaa dhici karo. Arrinka kale waa dadka arrinkooda aad sensitive-ka u yahay oo nafruhu kasoo boodaan. Marka nafro waxaa jira jirka ku warwareego oo marba meel kasoo baxo. Mararka qaar waa wax hormoonka la xiriiro oo meelo highly sensitive ah ee cilladu kasoo boodayso, ama nabar ama baabasiir hadday noqoto ila garo, ama hadday noqoto gadgaduud korka meelaha qaar ood u malaysid in yad lala dhacay, gaduud ama purple. dadka qaar waxaa malaysaa inay jug gaartay, dhiig rooreen. wax jugahay isku og yihiin ee ku dhacayna ma laha. bowdada lagu arkaa, kubkaa lagu arkaa, cududadii gacmaha lagu arkaa. wax dhacay ma la yaqaano. waa uun sometimes way dhacdaa, waayo lack of blood circulation la dhahaa, ama jirka symptom oo soo tuuro waa. mararka qaar waxaa soo boodo gariir ama vibration jirka ah, dibaaxin isha korkeeda, dibnaha mararka qaar, seedaha dambe oo dhabarka iyo tonka meesha loo yaqaano, gacmaha oo marmar gargariiro. waxaasoo vibration marka waa jirka oo uun waxun ka damqanayo. mararka qaar waa masalada soo kogo, muscle spasm, ama adoo hurudid, ama adoo socotid, ama adoo dukanayo, ama adoo howl adduunye qabsanayo, dhag meel unbaa iska kaa rooreyso. inta badan laakiin waa kubka. mararka qaarkood laakiin waa faraha, suul dhan baaba iska rooraaba, baabacada dhexgalaya, dhaab mana kala furi kartid, xanuun. marka cilladahaasoo dhan iyo qaar kaloo badan ha noqoto, adoo korkaagu faraantigaba diido, barar maba galaayo, faraantiga caadi kugu geli jiray ama fargalkii caadi kugu geli jiray, dhag waba diidaaba, farahiiba ku bararsanaa soo kacaysa. yaa og jirka ma dhiig karaa soo haayo, maxaa qaldan oo qofku barar la dareemaa gacmaha, ama gacmihii baa miiqmiiqi noqonaya, fargalkii shalay kugu geli jiray waa fataq, waba iska dhacaa, gooroo dhacayba mataqaanid. dadaa saas dahabka kaga dhumaa. maxaa lala shuuqay, maxaa lala bararay, waa wax meesha ku jiro. mararka qaarkood waa constipation aad u badan, ama calool istaag zaa'id u badan oo qofku leeyahay wigba musqulba ma aana gelin, dhag waa i taagantahay. dhagihii fuulka waxu maqli jiray oo aad rabtid in kor hadalka lagugu qaado, ood leedahay korow hadal, waxaa rabtaa in laguu dallaco, adduunyaduba inay qayliday loud noqoto, ay kuu qaylidaad rabtaa. marka isnaashnaashka iyo isdhoodhoojinta iyo isxisaabinta iyo isku lafa xirashada, lafihii la dhaqaaleeya raage ilaahay idankiisa, oo waxa adiga ood u xil saaran tahay. haddii la yidhaha marka cilladaha yaryarka ah oo soo kordho see la yeelaa, kulli waa gacan ku hayn. hadalku way duubto, Soomaali waxay tiri jir haween waa gacan ku hayn, wayna iska baxeen. qaabka aad gacanta iskugu qabanaysana waa wixii soo kordha fiiri, adiga xisaabtan. meesha meel waana waay, meel saaxiib waa, aniga waa kugu waani karaa uun isxisaabiye, qasab kugu malihi. laakiin qofku hadduu dhaho ka war maxaa sunniyahayga ku dhacay, waxalana u raadinayn. hadday tahay hormoonka soo baar, hadday tahay caafimaadka guud la soco, hadday tahay quruxdii hanaanka gacanta ku qabo. xilligii daryeelka haddaad gaarto waa inaad gacanta ku qabataa. laakiin haddaad la cabaada ka war anigu sunniyo qurux badanaan lahaan jiray, haddana waa bideen. haye anigu maqaar qurux badanaan lahaan jiray oo dhalaalayo oo sidiisa aan kula qaraacsanahay, haddana kala kalaraanahay. hypigmentation. marka wax walba daryeelay gaariyo gooni u rabaan. qofkaana laga rabaa inuu isxisaabiyo. dadku isku wada cillad maaha. qaaraa qurux hanaan celcelinaa, qaaraa caafimaadka guud celcelinaa, qaaraa caafimaadka gaar celcelinaa. caafimaadka celcelinaynaba allaha nala garab gale, insha allahu khayr. qaybta aan celcelinayno midaan ku guuleysano allaha nooga dhigo. anigana ma dhihin Soomaaliya dhahda biyo intii kusoo gelnaa layska moosaa. marka maanta waxa kuu nabad qabo waa inaad ilaahay ugu xamdidaa, ilaahay ugu shukridaa. intaan la soo gelgelinna waa inaad ka fooljegnaataa. haddii kale dhalinyaro xataa timihii ka bideenaa jirto. dhaqtar hadday u tagaan xalle wax kaa qaldan ma naqaano, waayo gacan ku haynaad u baahan tahay. dhaqtarka shuqulku ma leh, shaambaduuna kaa bedelayn, saliiduuna kaa bedelayn, fitamiinuu afka kaa siinayn. wixii daryeeladaa u xil saaran. marka saas u xisaabiya. lafihii la dhaqaalaysta maxay tiri Soomaali,
baaraago marka haleysla fadhaqaaleeyo soo dhawaada welcome dhammaantiin meel walba adduunka joogtaan channelkan waa channel waano waa channel dhiirigelin gudaha programkana waa meel nafaqa dhoodhoojis haleysla fadhoodhoojiyaha insha allahu khayr soo dhawaada welcome salaamu calaykum